barnaamijkan waxaad kala socotaan SBR TV oo aad TV-yadiisa ama fiidiyowyadiisa aad ka daawan karto sbr.fm. barnaamijkan waxaanu ku eegaynaa sidii ay u arkaan dadkaasi ku dhaqan gobolka Minnesota doodii dhex martay Governor Romney iyo madaxweyne Obama. daawasho wacan. I support Obama, no, regardless. But in my opinion, can't nobody compete with his speeches, the way he delivers facts. I wasn't really paying attention to Mitt Romney, what he was saying, or all the facts that he was developing and whatnot. I don't really pay attention to that. And I'm a big fan, not just a fan, but a supporter of Obama, the movement, how he present himself and his administration and all the things that he's trying to work towards. He's the type of guy that he's not just trying to sell a dream, but he's actually he's working with what he got, and he got us this far as economy-wise. I mean, you can remember 4 years ago, this whole United States, its economy, work, unemployment was very high. And now he's bringing that to life. So I'm a big supporter, and I would encourage you to support him as well. Romney waxaan aqsanaa Obama loo deganaa saaxiib. Kuma kula tahay soo baxay election Obama. Soo arkaysid dood caaw dhex martay Obama iyo Romney. ahaanta marka laga hadlo marka la fiiriyo dood socodka labadooda horta muhiimadda ugu ka hadlay labadaba waxay ahayd laba very competitive laakiin ninkan wuxuu ka hadlay Obama sidoo uu macna hadda u soo qabtay wax qabadkiisa 4 sano wuxuu ahaa Romneyna already wuxuu dhahay sidii ay ku jiri jirtay waqtigii Bush ku jiray marka iska cadda inuu wuxuu ahaa Romney Obama uu garanay this debate doodan waxay ahayd dood aad u xiiso badan oo dadka Mareykanka deganaa ay wada xiiseynayeen sugayeenna dad badan oo kale oo aan decided oo rabay inay baankooda inay ku qaataan caawa wada hadalka ee nin walba sidoo hadlo isu difaaci lahaa ama se wax qabadka uu qabtay ama qaban doono oo u sheegi lahaa taasina waxay ahayd mid labadoodaba ay doodoodu aad u fiicnay laakiin aan isdhihi karo waxaa dood fiicnaa labadooda President Obama. Kulata mustaqbalkeenu soo bixi doono Obama waa soo baxaya mustaqbalka sidaan ugu arko isagoo wax qabadkiisa iyo wada hadalkiisa hadda sidoo u dhigayo ay tahay hadal aad u fiican rabayna wax qabto horena soo qabtay haddana sheegay waxyaalaha uu qaban doono iyo difference-ga u dhaxeeya labadooda isaga iyo Obama waxaan u arkaa inuu noqon doono mar labaad la doorto